bal qiyaas inaad ku fiican tahay kubadda cagta oo uu dalkaaga sharci darro ka dhigo inaad ka baxdid isagoo kuu sheegay inaad tahay hanti qaran maxaad samayn lahayd isagoo 17 sano jir ah Pelé ayaa dhaliyay 6 gool koobkii adduunka ee 1958 oo ay ku jiraan 2 gool uu dhaliyay finaalka taasoo Brazil siisay koobkoodii ugu horeeyay abid koox kasta oo weyn oo Yurub ah ayaa doonaysay laakiin Brazil ayaa diiday waxay ku dhawaaqeen inuu yahay hanti qaran si aan weligiisa loo iibin Pelé danka ma uusan lahayn Santos waxay siinaysay mishaarkii ugu sareeyay adduunka xilligaasi oo kubadda cagta koonfurta America ay ahayd mid sare Brazil waxay noqotay mid aan la joojin karin waxayna ku guuleysatay 3 koob adduun 12 sano oo kaliya Pelé ayaana ahaa wadnaha dhamaantood dadka mararka qaar waa ay ka shakiyaan laakiin Pelé waxa uu ka hor yimaaday 200 oo kulan horyaalnimada kooxaha Yurub wuxuuna ka dhaliyay 90 gool xirfadiisa ciyaareed wuxuu dhaliyay in ka badan 1,000 gool ma jirin cudurdaar ah offside mana jirin mucaarad daciif ah xilligaasi kaliya waxay ahayd xirfadiisa saafiga ah runtii tani Pelé waxay ka dhigaysaa kubadda cagta inuu u furay albaab kale haddii aan ku weydiiyo Pelé ma goodka kubadda cagta mise waxa jira ciyaaryahan kale oo aad u aaminsan tahay